guri 1 milyan intoo la dhiso oo la dhammaystiro adaa miftaax leh qaado uun dad laga yidhaahdo عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا قالقة قيمها إيه قدرين تبضن ملك صدافها دنيا أد كجوكتين برتن أن نقدي هاني سوا برتي آلا بقى نسكوي نجرنا على دقن هذا نقول عصبتها هاي سبسكرايب لايك إيه كومنت تقول مركزتي وين ديري قليان هذا نلجوكتنا أد إيه أد بان كاجم هاد علنينا لجوجاجا إيه ديري قلين هذا أنت مركز لقي ما دو فيديو قلنا ما أنت وحود دارين هاي waxa uu daaran yahay ama wuxuu ku saleysan yahay waxaan vlog aan ka soo duubnay magaalada Shinile gaar ahaan xaafadda cusub ee 77 xaafadaas dhawaan ayaa la dhisay waxaana dhistay dawladda ayaa dhistay waxayna u dhistay dadka hayntoodu ay hooseyso waxay dhistay 48 guri ama 48 guri ayay dhistay waxayna ka dhistay xaafadda toddobaad ee isla magaalada Shinile hadduu ilaahay yiraahdo fiidiyogan isaga ah waxaan kaga hadli doonaa ama waxaan kugula soo wadaagi doonaa 7 sidee doontaba ha ahaato saaxiibayaal mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waan ku soo dhaweynaynaa waxaan kugu soo dhaweynaynaa YouTube-keena Cali Dhaqan aniga iyo adigaba xaafadan iyada ah waxa la dhisay san haddaan carabka aan ku dhuftay 2 sano ilaa sanad iyo badh qiyaas ahaan ayaa la dhisay deetana waa lagu wareegay oo dadkii loogu talagalay ama dadkii loo dhisay ayaa lagu wareejiyay waxa la dhisay 48 guri waxaana ka faa'iideystay 48 qoys oo hayntoodu ay hooseyso waxa ka faa'iideystay sida aan macluumaadka aan ku helay markii aan dhaxmaray 12 qoys oo masaakiin ah 12 qoys oo agooma ah 12 qoys oo macallimiin ah iyo 12 qoys oo caafimaadka ka shaqeeya 48 qoys ayaa ka faa'iideystay xaqiiqatan magaaladan iyada ah ama xaafadan iyada ah waa xaafad tayadeedu aad iyo aad ay u sareyso aad iyo aadna waa loo qurxiyay si wanaagsanna waa loo dhisay isla magaalada Shinilena waxay ku soo kordhisay bilic aad iyo aad u qurux badan iniga degdegi maayo kaana sii hordhici maayo indhahaaga ayaad ku arki adiguna qaybta commentiga ayaa ku furan halka ayaad fariintaada nagula soo wadaagi doontaa hadduu ilaahay yiraahdo maanta waxaan ka bilownay vloggeygii koobaad magaalada Shinile waxaan ku dadaali doonaa hadduu ilaahay yiraahdo masay ballanteenuba ahayd inaan gobolka City dhamaantii aan soo wada mari doono oo lugta aan soo marin doono adigana aan kula soo wadaagi doono kan xaafadahan waxa la yiraahdaa 7 هذا الشقة قصدت أرض الشقين في نقص أرض هذا لكن مريها وحالة إلى 77 دولة يا كعاوسي dadka ay hayntoodu xoog u hooseyso magaaladan Shinile marka dhowr qaybood bay kala kooban yihiin qayb wata qaybna waa tan Allahu musta'an qayb waa tan marka way kala jeedaan way dantay baash أفكاري وكذا. أوكي. أوكي. halkan waa qayb marka guriyuhu waa sida weeyaan waxa nasiib u yeeshay dadkii danyarta ayaa nasiib u yeeshay waxaan filayaa gurigiiba waxa lagu dhisay lacag aad u fara badan ayaa lagu dhisay ka la intan
ما شاء الله حقيقة وقري آدي آدي قروح بدن waxaynu ku kala duwan yihiin male balse midabyada un baa loo kala bedelay qaybtaasi waa bunni qaybtani waa noocan qaybta kalena waa noocaas waa kuwan xataa camba ka dhex baxday marsi ma sha Allah lagu nastay okay ilaa qaybtaas ilaaha aadan roob la geelle waxaan ku noolahay xafadan 77 waxaana ka mid ahay dadkii danyarta ahaa ee markaa loo soo raray waqtigii ummadda la dejinayay halkan guryahana laga siiyey guryuhu waa kuwa ay darkaysid kuwa aad u qurux badan oo dhismo fiican laga dhisay oo horumarka wax weyn ku soo kordhiyey wey oo indhaha bini'aadanka aragtida lagu farxi karo ta kale waxay noqotay isbeddelka ka dhacay dalka guud ahaan iyo deegaanba marka uu dhacay ka hor waxaanan abid dhicin min Hayle Salaase Malilig منقصة هلا مريم ملا سنة من أنا ندعم بعدعي هاي حقنا سوجو سهل هاي وحاسبوا حواها ولي هالمليون أنت والله دسوا والله دما يستروا هذا مفتاح عليه قاعدة وندد لقيه ده هذا دد كنا أي مفتاح أنت قاتين وقريه قلين يا دعدي إن بدن مقشول بان كديه وروان محي oday baa dhacday aqalka markii loo furay gal furaha hool laga yiri biyo ma jiraan mid xagga dambe ka yimid oo tumbadii biyo hormareysay un baa dudada ku kala go'day waa farxadii amarka Ilaahay si walba wuxuu u dhacaan ma sha Allah kolka waxaan si gaar ah iyo si walba ugu mahadnaqi dowlad deegaanka madaxweynaha maanta ka taliya gaar ahaan iyo guud ahaanba maamulka dowlad deegaanka Soomaalida maanta hay waa dad wadaniyad leh jecel inay ummadooda u adeegaan jecel inay meel gaarsiiyaan ay ku simaan harumar lagu naaloodo oo lagu raaxaysto waxaana soo martay dhibaato aad u badan oo aan iminka ka sheekayn karaynin xumaan badan haddii la arko wanaag badan in la arko Ilaahay fadligiisa ku jirtaa wanaag badan baan uga dambeeyo aragnay waa ka caruurta ay ciyaarayso isdaba yaaci dhinac walba darkaysid waxay ku raaxaysanayaan foolxumadii iyo miskiinnimadii laga keenay iyo guryaha quruxda badan ee waalidadoodii loogu dhiibay ay soo galeen dawladdoodiina siisay kolkaa waxaan leeyahay guud ahaan jamhuuriyadda federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ha guuleysto ilaahay isaga iyo ciidankiisa dagaalka saaka galay ha guuleeyo gaar ahaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida guddigiisa fulinta iyo golihiisa dhaxaba Allah liibaano ilaahay ha ku nabadgeliyo xilka ay ummadda waayaan nin xil qaaday eed qaad baa la yidhaa Allah ha ku nabadgeliyo ilaahay ha ku badbaadiyo waan u ducaynaynaa milay walba iyo saacad walba milay walba waan u ducaynaynaa Allah ku karaameeyaan leenahay oo waxaan la arag oo la maqal bayna tuseen waxaan la arag oo la maqal horay loo arag horay loo malqin laguna talagelin ayna cidiba haabka ku haynin intoo lacag la soo qaado dhul la geliyo oo guryo qurqurux badan laga dhiso soo saraka soo fuul gaadhiga halkan ku dhaadhac gal aqalkan adigaa leh gal cidina haabka kuma haynin waxaan la arkin oo la malqin bay noqotay taariikhda dadka aqliga leh way ka sheekayn doonaan ilaahay ninku gaadhsiiyo anagu nolosha fiican baan maanta ku noolahay waxaa laga yaabaa tixunna inaan soo marray kolba xaafadu guul naanaab geri baa igu dhacday oo 5 caruuran halkan iminka ku haysta ay hooyadood dhimatay sidaa kolba xaafad la gal kolba kaartay la gal
wanaagganina uu iiga dambeeyey ilaahay baa wanaag leh ما شاء الله madaxdeedaana nugu mahadinaynaa ما شاء الله madaxdeedii dowladdeedii xisbigayagaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay ha guuleeyey iyagana kuwa talada u haya ummadda maanta صح lama aragoo lama maqale ilaaha weyne waaxidii ha ku garab gala xilka ay ummadda u hayaan imise qoys baa ka faa'iidaysta adeer in 12 qoys oo danyar ah oo anigu kow ka ahay صح way jiraan 12 caafimaadii way jiraan 12 waxbarashadii way jiraan صح 12 qoys oo kale oo agoomihiina way jiraan way jiraan ما شاء الله kolkaba 48 guri waxa loo dhisay loo dhisay way socdaan xitaa weli way sii socdaan halkan 16 guri waa imka dhismo dhammaad ku jiraa صح way sii wadaan marka 48 qoys ayaa ka faa'iidaystay iyo oo ka faa'iiday oo raashin ila ah oo reer Shaniila ah ما شاء الله oo Soomaali u dhan Soomaali ay u dhameystiran tahay Soomaali u dhan ما شاء الله la qabiil ka maqan uunan jirin ما شاء الله الله karaameeyo waxaad kaloo wax nooga sheegtaa bilicdii magaalada Shaniile maxay ka bedeshay boqolkiiba boqol dee waad garan kartaa marka aad magaalada koonaheega soo gaadhid صح ma jiri jirin guryo noocan oo sidan u qurux badan صح aad bay wax uga bedeleen bilicdii magaalada iyo bilicdii magaalada aad bay wax uga bedeleen ta kale waxay soo biiriyeen ku dayasho in dhismayaal badan oo aad u fara badan wadanka laga dhiso iyay soo kordhiyeen in dhulka la kala boobo oo halkan aan inta siisani inta la yiraahdo